بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد دمان أصحابتي وسلامنتهين سلام كدب وحمانت إذين هايا قصة عجيب إن شاء الله وكهالليس ظلمي إيا نفسي قفك بن آدنك أمركي لظلمي أما قفك وحي وكاقع سرية يعني دادك وكاقع سرية وظلمي qisadan waxay ka dhacday wadamada carabta waxayna ku dhacday famil oo hooyo iyo aabe iyo maxay ahayd caruur ah gabdho laakiin aan wax wiil ah dhalin familkii marka aabaha wiil aad u jeclaa marka waxay go'aansadeen inay wiil soo gataan wiil yar oo ay korsadaan kadib wiilkii markay ay korsadeen odaygii markuu wiilku soo weynaaday wuxuu nacay oo wuxuu dhahay wiilkan wiilkii saxda ahaa ma aha aniga ma rabi hana dhaafa camal maamada waa ka diiday marka waxay ku tiri maya cunugan meel kale ma haysto annagaana soo korin anaguna waalid noo yahay waana jeclahay oo maamada aaday u jecleed wiilkiina ismaba oga waa wiil cid lacag leh u haysta inay dhashay oo waxaan ku dhahay kaala aragaan ku dhaha nolol kaale aragan ku nool maalin maalmaha ka mid ah marka maamadii xanuunsatay waxay iskaga shakisay inay dhimanayso markii ugu dambeysay istiri waa dhimanaysaa ee waxay siisay dahabkeedii siisa waxay ku tiri hooyo qaado wuxuu ku yiri hooyo gabdha ayagu joogaan see aniga ii siinaysaa dahabka kadib asagoo iyadoo warkii la isku haystuu dhahay see aniga ii siinaysaa ee maamadii nafti ka dhacday maamadii markay dhimatay muddo adiga ayaan kasoo wareegtay oo xoogaa geeridii la iloobay ayuu odayga wiilka kusoo jeestay wuxuu ku dhahay dhageyso aniga kuma dhalin waan ku soo gatay waana ku korsaday haddana kuma rabo banaankaas iga mar maamadiina way dhimatee banaankaas iga mar wiilka marka wuxuu ku yiri say ku dhici kartaa inaaday dhalin adiga i dhashay aabe adaa i dhalay بعدين wuxuu wiilkii odayga ku qanciyay inuu soo dhalinin markuu wuxuu yiri aabo hadaada i dhalin aan kula noolaado xataa jaamacad ha iga dhiibine wiilkii markaas jaamacad uu galay rabay waa laga joojiyay jaamacadda odaygu ka joojiyay aaba jaamacad xataa ha iga dhiibin wuxuu ku yiri iska noolaado guriga aan ku noolaado oo ka diiday wiilkii guriga uu ka bixi waayay marka oday booliska ugu yeeray booliska markuu ugu yeeray wiilka waa la kaxeeyay waxaa lagu yiri ninkan gurigiisa u nabadgeli cadeymaa la helay maxkamadii sheekadu gaartay waxaa la hubsaday wiilkan inuu soo dhalay marka u nabadgeliyaa la dhahay gurigiisa wiilashii oo iyo asxaabta uu la ahaa xoogaa wiilka waa lagu qoslay waxaa la dhahay lacagta ay sheegan jirtay aawa يعني حالكاada saan ma u dambeysay بعدين wuxuu bilaabay wiilkii saaxiibadiis intii wanaagsaneed xataa inuu u maleeyo sidii kuwii kale inay maxay ahayd ula hadlaayaan marka uu ka baqo oo saaxiibadiis dhanka ka dhunto oo kaligiis soo noqdo odaygu dhowr jeer soo noqday oo bilaabay inuu baryo oo ku dhaho aabo iska keedaa xataa bal shaqo iyo wax aan raadsaday aan guriga ku noolaado odaygu wuxuu mar kale booliska ugu wacay guriga ka saari lahaay miya waardiyo albaabka dhigtay بعدين wiilkii marka dawladii markii marka la qabtay wiilkii wuxuu ku yiri ani guriga ma haysto cunta cunna ma haysto marka dawladii waxay go'aan ku gaartay maadaama uu wiilkan hooyo iyo aabe iyo wax ahila uusan lahayn in qol iyo maxay ahayd masquul iyo jika yar la siiyo raashin ay dawladda siiso noloshaas uu ku nool yahay asagoo gartay ku baxay xaaladiisa sida si kaleeta ee noqotay xoogaa maskaxda wax ka gaareen ayuu u joogaa magaalada waxaa loo yaqaanaaba yani ninkii oo waalnaa yani ninkii wax ka qaldanaayeen marka saas halkaas marka wiilkii noloshiisii ee ku baaba'day wiilkii yaraayo quruxda badnaayo jaamacadda markaas galaayay gabdhihii walaalihiis ahaa wuxuu ka ilaaliyaa lacagta inay lacag helaan haddii kale wiilkay siinayeen maalin bay habarirtood waxay ku dhaheen bal maanta odayga ma ogola inay gabdhaha baxaan nooga fasax qaado gurigana waardiyuu leeyahay waa cid lacag leh kadib maxay ahayd
habaryartii way soo fasax qaatay, way u geysay. Markii u geysay waxay arkeen gabdhihii wiilkii inuu raashin keliya uu haystee suugo iyo wax lagu daraba uusan haysan, yaanyo iyo wixii lamid ah, uu noloshaas ku nool yahay, maskaxdiisana ay wax ka qaldan yihiin. gabdhihii way soo noqdeen murug, waxna kama ay qaban karaan. kadib muddo kadib wiilkii ayaa waxaa dhacday qabrigu aadaa. horta qabriga siduu u aadayo uu ugu kor oynayo, uu dhahay hooy maxaa iigu sheegi weyd, hooy waa iqiyaantay. aa la soo kaxeeyaa, gurigiisaa la keenaa, haddana ayaa markuu joogo haddana wuu ku noqdaa qabriga. qabrigiibu faganaya, wuxuu rabaa inuu kasoo saaro iyadii uu la hadlo, ilaa waa qof maskaxda wax kaga hareeni. kadib odayga wuxuu sameeyey gabdhihii wuxuu ku daray mid walba nimanuu ku daray. wiilkiina waxaa dha hal gabar u daayay, halkaas gabarna maxay ahayd wuxuu u daayay way yareed. wiilkiina waxaa dhacday wuu dhintay meydkiisii. urka xaafadda waa la dareemay. markii urka la dareema waxaa layiri nin waalna inta kasoo bixi jiray, waxaa wax ka qaldan yihiin hala soo fiiriyo. haddii lasoo fiiriyo waa meydkiisii oo uray. kadib wiilkii markii adil waxaa la ogaaday sida la sheegay inay wiilkaas gaajo oo u dhintay. waxaa dhacda marka odaygii barwaaqadiisii ku dhex jiraa, xaaladiisii kama qasna. gabdhihii marka uu mid walba u guuriy halkaas gabar reebtay oo asaga guursaday. asaga markuu guursaday wuxuu dhalay wiil markaas dhiman ah. wiilka maskaxdiisa ma shaqeynayso, si fiican uma shaqeynayso, korkiisana maba shaqeynayo, meeluu iska yaalaa. dhaqaatiirkii marka waxay ku dhaheen haddaad ku dadaashid insha allah wuu raysanaya, jarmalka geeyaa la dhahay. odayga marka hadeeraa waxay u biloobatay wiilkii yaraa ee uu soo korsaday ciqaabtii iyo wixii uu ka galayaa hadda odayga u biloobatay. qaybta labaad ayaa soo gelin doonaa qishada insha allah. haddii aad ka heshay subscribe saaro si aad qaybta dambe ula socotid. waxaan insha allah ka codsanayaa inaa laag ii saartaan. aad ayaa u mahadsantihiin.